gudoomiyaha degmadan Baardhede ee gobolka Gadow ayaa mar kale sheegay in hawshan ay tahay hawl caafimaad oo bulshada deegaankan u baahi qabtay hay'adaha kalena ay la yimaadaan qorshe caafimaad oo deegaankan dadkiisa wax loogu qabanayo si maamulka iyo hay'adaha ay isaga kaashadaan caafimaadku u baahan yihiin bulshada danta yar ee ku nool magaaladan iyo nawaaxigeeda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Maanta ay taariikhdu tahay 4 bishii 12aad 2021 waxaan booqasho ku imid kormeer ku imid xarunta caafimaadka hay'adda Fadhi Gargaar ee degmada Baardhede ay ka socdeen adeegyo caafimaad oo loogu adeegayo bulshada danyarta ah ee degmada Baardhede iyo dadka bukaanada qaba xanuunsan. runtii meeshan waxaan ku aragnay shaqo mudan bogaadin dhaqaatiir u adeegay bulshadoodii deegaano kale uga yimid inay u adeegaan si ay caawiyaan dadka walaalahooda ah ee danta yar oo runtii meelo fofo aan u gaari karin xaalad caafimaad inay aadaan awoodi waayay waxay fuliyaan qalliino ilaa dad tiro gaaraysa dhaqaatiirtu sheegeen dhammaantood waa lagu guuleystay alxamdulillah ilaahay waa ku mahadsan oo dadkii ayaga ahaa mid oo la fariistay dhammaantoodna waxay ii sheegeen waqtiga dhaqaatiirta iyaguba in lagu guuleystay kiisaskaas waxa sidoo kale diyaarsan oo in loo fulin rabo qalliinada tiro kale oo hadda uu socdo processkoodii waxa sidoo kale jira dad la seexiyay oo xanuuno waqtiga barnaamijka ay la mari waayeen oo jiray oo jiifa isbitaalka xaaladooda caafimaad ay soo kabanaysa 90% sidoo kale waxa jira kuwa bukaan socod ah oo daawooyin loo qoray waxaas oo dhan waa free oo waa lacag la'aan oo daawooyinkaas iyo waxaas ay qalinaas oo dhan sidaan hore u sheegnayba waxaan u mahadcelinaynaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo waafajiyay intaas oo dhan suuro geliyay dadka xanuunsan caafiyay u keenay walaalahood moogtahay gurmad caafimaad u wada iyo dhaqaatiirtii usoo moogtahay safray inay hawshaas qabtaan iyo madaxda hay'adda Fadhi Gargaar oo hadda uu naga joogo Cabdiqadeeq sidoo kale saaxiibkii caafi waxaan leenahay aad u mahadsantihiin shaqo fiican baad haysaan waan ku dhiirigelinayna waan ku garab taaganahay Ilaahay agtiisa ajir baad ka helaysaan bulshada Soomaaliyeed agteeda oo deegaankan abaal bay idin hayaan sababtoo ay tahay waa dareemi kartaa qofka marka uu xanuunsado dhibaatada ay leedahay xanuunka iyo dhibaatada uu dareemi kartaan marka inaad hesho waa culus tahay marka xilliga lagu jiray in adeeg caafimaad oo free ah way adkeed waqtigiin insha Allah ta'ala marka waxaan rabnaa waxaan ka rabaa inaad sii xoojisaan shaqadiina sii xoojisaan oo moogtahay ku dhiirigelinayna waxaan sidoo kale rabnaa bulshada Baardhede inay garab istaagaan dadka sida ay u shaqeynayaan oo dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay idin keenay dhalinyarada dhaqaatiirta aqoonyahanada inaad dhiirigelisaan u duceysaan uga mahadcelisaan waxay idin qabtaan yaa leen ka rabaa dadka kale oo caafimaadka iyo dadka hay'adaha waxaan ka rabnaa in qof kasta wax wanaagsan oo qabto bulshada si wanaagsan loogu adeego cid kasta oo marka hawlgalkan caafimaad gacan ka geysatay waa u mahadcelinaynaa hadii qurba joog hadii hay'adahiin maamulka degmada bulshada dhammaan dhaqaatiirta qof kasta waa mahadsan yahay aad baa u mahadsantihiin. Assalamu alaykum.